warwaan yaabanahay waana idin salaamay ragga halkaan safan nin baa dhexda ku jira ay calaamadu tilmaamayso bal ninka ila yara daawada dabcan waa xulasho rag weey oo raggiiba line ku jira gabar baa soo baxaysa ninkay ka hesho bay dalada u dhiibaysaa laakiin ninkan dhexda ku jira oo calaamadu tilmaamayso asagu wali dooqiisi ma helin baan filayaa oo already hadda mid buu diiday gacanta u soo taagtay wuu diiday sankana cirku u taagaya malaha waxaan sida ma wiil hoog buu isku mooday ma dabeecadiisa waxa weeye maaragtay hablaha ku diraysa videogan markaan daawaday sida runtii aad iyo aad buu ii soo jiid waxa kamid ah oo waxa aan maaragtay aad kugu soo gudbinahay rag badan oo waxa jira guurkii ku seegay inkastoo guurka calaf yahay oo ciduna baajin karin oo ilaahay wuxuu qoray uu yahay laakiin se kula maaragtay gabadhan waa sidaan laga yaabo inuu maaragtay gabadhii uga tago wax maaragtay fanax bay leedahay hadda saambul ahaan oo kale fanax bay leedahay waxa weeye maaragtay sunniyaheeda yar sidaanba waxa maaragtay non-sentence oo macnaha wax ka soo qaad lahayn oo macnaha aan maaragtay qofkii dabeecadii iyo diintii iyo dhaqankii waxyaalo waaweyn baa laga fiiriyaa laakiin se gabadhii inaad uga tagtid oo ninkii uu uga tago wax weeye maaragtay fanax bay leedahay sunniyaheedu ma waaweyna faruuriyaheeda yar waxa weeye maaragtay indhaha baarkooda ma waaweyna waxyaalahaas waa waxyaalaha waxa weeye maaragtay aadka iyo aadka maaragtay u dhib badan waay aniga laftayda mar waxa weeye maaragtay yaraantiiba mar ay sidaas igu dhici gaadh marka dooqa waalan oo noocaas ah dad badan buu guur la'aan dhigaa wehel la'aan uu dhigaa saaxiibkan waka waa la eegayaa waxa la leeyahay war ninkan maxaa ka qaldan adeer tii u dambaysay ayaa gacanta la haystaa asaguna hadduu gadaal sii eegayaa malaha wuxuu siiri mid baa ka dambaysa taas bal eeg ogow rag iyo dumar dabeecad ayaa la isku dhaafay oo kala geysay